go'aansatay in aad isbedel samayso 2021 2022 2023 2024 welina wax isbedel ah kuma hirgelin waxaadna soo dhaafi la'adahay xayndaabka isbedel doonka haddaba sababta ugu weyni waa laba number 1 in aadan si dhab u garanaynin waxa aad doonayso labo in aysan jirin joogtayn iyo isla xisaabtan laakiin war farxad leh sanadka 2025 uu kaaga duwanaan doonaa insha Allah tacaala sanadii ku soo dhaafay bal qiyaas adiga oo jooga dhamaadka 2025 guud ahaan noloshaadu isbedeshay dhaqaale ahaan caafimaad ahaan cibaado ahaan ma ahan waxaan si kaftan u leeyahay laakiin waad gaari kartaa haddii aad martid jidka saxda ah waxaan rabaa muuqaalkan inaan kugula wadaago 5 tallaabo oo haddaad qaado sanadkan 2025 uu noqon doono sanadkii kuugu wanaagsanaa abid haddaad nagu cusub tahay waxaan ahay macalin cigaal qoraa tababaro nololeed waxaan sanadkan kaa saacidi karaa in aad heshid jidka guushaada sidoo kale inaad dejisid hadafkaaga iyo qorshihii ku gaarsiin lahaa hadafkaas joogtayn iyo isla xisaabtan dhab ah inaad sanadkan gashid ayaan kaala shaqayn doonaa aakhirkiina noloshaadu ay noqoto mid baraare iyo barwaaqo ku dhisan intaas waxaa kuu dheer waxaad ku biiraysaa bulsho horsocod leh isbuuc walbana waxaad helaysaa tababar sare u qaadaya horumarkaaga tallaabada koowaad ee tahay sanadkan in aad qaadid waxa weeye qor oo cadee hadafkaaga maxaad doonaysaa in aad sanadkan xaqiijiso waa maxay haddana sababta aad waxa u doonaysid ma waxbaad iska doonaysaa oo noloshaadu iska jeclaatay mise sabab ayaa jira oo aad rabtid waxaas inaad u xaqiijisid ogow hadafkaagu waa in uu noqdaa mid cayiman oo la gaari karo mid ka mid ah akhyaartii aan haweenadan talada siinayay ayaa hadafkiisa waxaa ka mid ahaa in aan sanadkan barto luqadda Ingiriiska sidaas daraadeed in aan sanadkan barto luqadda Ingiriiska markii sanadka uu dhamaado sidee buu ku ogaan karaa in hadafkaas uu xaqiijiyay in kale soo hadafkaas waa in uu noqdaa mid cayiman tusaale ahaan waa in sanadkan aan luqadda Ingiriiska ku hadli karaa qoraal ahaan fahmi karaa muuqaalada markaan dhageysto waa in aan fahmi karaa soo waa cayimaya talaabada labaad qorshihii hadafkaaga ku gaarsiin lahaa sanadkan u kala qaybi 3 bil qor waxa 3 bilood soo socota hadii Ilaahayna aad xaqiijin kartid kadib haddana qor waxa aad bishan xaqiijin kartid sidaas ku sii wad ilaa aad qortid waxa aad xaqiijin kartid maalintaada ogow aasaaska guusha sanadkaana waa maalintaada talaabada saddexaad aaminaad iyo isu kalsoonaan waa inaad si dhab ah u aaminsan tahay in aad gaari kartid hadafkaaga waa inaad iska ilaalisaa niyadjabka degdega ah waa inaad garanaysaa caqabadaha ka hor iman doona una diyaar garowdaa ka gudbidooda talaabada afraad waa joogtaynta safarka 1000 maylka ah wuxuu ka bilowdaa hal tilaabo oo qaadid laakiin 2 tilaabo iyo 4 tilaabo iyo 100 tilaabo midna kuma dhamaado halka aad u soconaa waa inaan guul xaqiijino dhamaadka sanadka shaqo ahaan waxaan diiradda saaraynaa maalinteena laakiin natiijo ahaan waxaan diiradda saaraynaa dhamaadka sanadka sidaas daraadeed waa inaan joogtaynaa horumarkeena waa inaan ka taqalusnaa wax kasta oo naga hor joogsanaya joogtaynta horumarkeena sida baraha bulshada saaxiibada aragtida liita leh iyo wixii la mid ah talaabada ugu dambaysa ee shanaad waa isla xisaabtan haddii aad ka dhuumatid inaad naftaada runta u sheegtid adna iska hilmaam inaad guul xaqiijisid waa inay jirtaa saacado aadan gorgortan ka gelin saacado aadan qabanayn wax kale ilaa inaad horumarkaaga mooye ka shaqaynaysid saacado taleefankaagu dansan yahay saacado aadan cidna la sheekaysanayn saacado aad ku foogan tahay sidii aad hadafkaaga u xaqiijin lahayd dhamaadka maalintaadana waa in aad isla xisaabtantaa sidoo kale dhamaadka isbuucaaga waa in aad isla xisaabtantaa aadna dejisaa isbuuca soo socda wixii aad qaban lahayd haddii isbedelku dhabkaa yahay anna waan ku saacidi karaa ku soo biir bulshadeena horumarka hiigsanaysa linkigana hoos ayaan kuu dhigayaa ilaa muuqaalka xiga waba